xubnaha baarlamaanka oo dhuusamareeb looga dhawaaqay wax ku iidanahay ma aha kuwii sharciga ahaa oo odayaasha loogu talagalay. sharcigu siduu leeyahay odagu waa inuu soo xulaa. welida macnaheedu waxa weeye inuu sifadii kursiga lahayd u yeero cid keensadaan, midaasna uu saxiixo oo qoro wey. isagu ma keensan karo, oda kale uma keeni karto. sidaas darteed maadaama aan isleenahay 69 xildhibaan haba yaraatee mid dadkeedii keensaday ma jiro. hadduu jirana 10% ma dhama. inta kale waa liis dowladda federaalka xamarka waxaa ku jira darawalkii xasan cali khayr, waxaa ku jira kuwo ka shaqeeya maaragtay wasaaradaha xafiisyada. gebigooda xamar baa laga maba aha dadkii ehelka u ahaa ama garan lahaa ama ka talin lahaa dhulkaan gobolkan ma aha. madaxweyne xaaf, adigu geedi socodkan iyo hawshan lagu dhisayey xubnaha baarlamaanka qayb kamaadan ahayn. muqdishaa jirtay, hawshanna ahlu sunna iyo guddigii ay dowladda u saartay yaa waday. adna horay baabad ugu wareejisay shaqada dowladda federaalka. sideed ku ogaatay marka in xildhibaanadan la soo xulay aysan sharci ahayn, in odayaashii soo xulidda lahaa meesha laga qadiyey? shaqada la shaqaynayay waxay ahayd inaan qayb ka noqdo. wareejintii mar horaan ka noqday andaweyn. hataa haddii aan wareejiyey inaan xubin ka noqdo iyaguna jooga ahaan dalgareeyeen, laakiin aniga joogaya weliba markii hore waxaan ku ballanayna hawsheeda annaga wadano ayaguna la fogteeyaan. haba yaraatee maxaa la sameeyaa hataa weligood ma maxaa la qabtaa ima oran. hadda iyo dan madaxweynihii baan ahay, weli aniga xilina ma wareejin. waa jooga anoo gobolkii jooga in dhuusamareeb wixii la rabo lagu sameeyo la yidhahdo haddaad soo gasho waa lagula dagaalamaya ayaa jirta. marka baatil weeye. haddaysan baatil ahayn marka walaal waxa weeye ayaga nimankan waxay goosteen dad ay keensadeen inay meesha keensadaan. madaxweyne ay leeyihiin samaystaan, madaxweyne ku-xigeen ay leeyihiin samaystaan, guddoomiye baarlamaan ay leeyihiin samaystaan, wax ay leeyihiin dowladda federaalka inay samaystaan ayay doonayaan. annaguna waxaan rabnaa wax gobolkan wax u tara oo gobolka u taliya oo gobolku leeyahay ayaa annaguna u baahan. madaxweyne xaaf, laakiin mar horay ahayd soo ma ahan waxan aad ka cabanayso iyo dhaliilahan inaad jeediso oo dhuusamareeb tagto, ama intii muqdishoba aad joogtay waad iska aamusnayd. waad og tahay ra-iisul wasaaraha inta jeer dhuusamareeb uu ku noqday. waad og tahay wasiirka arrimaha gudaha inta jeer ee uu la xaajooday ahlu sunna iyo odayaashii beelahan ee qadiyadan ay qusaysay. hawshaas oo dhan markii la waday maxaad u aamusnayd? abtaas waxaan u aamusnaa meeshaan aniga 2 sanadood iyo 2 sano waxaa laygu hayey ihaano, lugaha lay hayey, cunaqabatayn baa laygu sameeyey. inaan meeshaan ka shaqeeyo dowladda federaalka ma doonay. sidaa daraaddeed dad badan oo fahamsanaa islahaa isagaa gar ayaan doonaya inay arkaan dowladda federaalka waxay ahlu sunna oo dadkaan isugu dambeeyey ayagaas u kaayadii ugu dambeysay. bal inay ayagu wax ugusan aniga wax nidaamsan oo fiican haddii la samayn lahaa marka daba hadleen baawer hangerna maahay ii malayn mar. laakiin waxaan rabaa aniga wax wanaagsan inaan ka tago ay meeshaan ka dhashaan. nabadii baa luntay, dimuqraasi baa lumay, developmentii way hor istaageen. 2 sanadood dalka wax laga qabtay lacag ka badan 40 milyan oo dollar oo gobolku leeyahay ayay carqaladeeyeen oo caqabadeeyeen oo hortaagay inay gobolka la timaado dowladda federaalka. annagu ma ogin xaaf meel lacag lagu hor istaagay. ogaantanada waxay ahayd inaad wax walbo adiga waajibaad shaqo ahaa oo aad lahayd aad wareejisay. maalin cad cid ku qasabtay ma jirin. adaa warqad soo qoray yidhi hawshan waxaan u xil saartay wasaaradda arrimaha gudaha. wasaaraddii shaqay waday wasiir sabriye dhowr jeer buu ku noqday dhuusamareeb. gurceel buu tegey. hawshii ciidan wareejinta, ciidankii la qarameeyey, xal u heliddii khilaafkii ahlu sunna. adiga hadda gaalkacyaad joogtaa, dhuusamareebna ma joogtid. ma isleedahay xaaladdii unbay oga sii daraysaa inaad maanta ka hor timaaddo xubno baarlamaan oo sidii lagu soo dhisay la ogaa iyo wakhtigay qaadatayba? xubnahani waa xaaraan wey. odayaashii la rabay inay soo kulaa waa kuwa qaylinaya. cid walba waa dhegaysay. midda aan leedahay xamar baa joogtay. aniga waxaa weeye 2 sano maadaama la cunaqabatayo dhibaata igu dhacday, aniga dowladda federaalka iyo ummadda iyo caalamkuba inay arkaan baan u aamus. haddana waa la xubnaha